horta muxuu sal ku hayaa khilaafka u dhaxeeya ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha markii labadooda la isbarbar dhigo waxaad arkaysaa madaxweynaha awoodiisa xilalkiisu inay aad u badan prime ministerku wuu ka carooday inuusan ogeyn meeshuu ka leeyahay inuusan ogeyn madaxweynuhu kula shirayaa xafiiskii qolkii VIP-ga airportka guddi ka yimid Mareykanka sideeda dhibaatada horta saacid baa dambe laga galo horta anu si aragtideeda horeysa bilowga dhibaatada saacid wuxuu sameeyay dawlad 10 qof ka dhisan oo kooban oo cadad leh oo xoog leh oo shaqeyn karta anigu horta hore waan aaminsanahay waan waafaqsanahay nidaamka federaalka shakhsiga waxaan federaalka leeyahay waxa aan leeyahay naga Soomaaliyeed xaraan ugu yahay hadda hobyo hadday soo raacdo Puntland wuxuu soo raacay Puntland ya oo xuduudii gobolkii mudug lahaa Puntland soo raaciyo galgaduud hadda galgaduud sida ahayd iyo gobolkii Hiiraan la israaciyo ma dhib baa ku jira Puntland ha lagu daro waqooyiga gaalka hadii leeyahay baraxley iyo dhinacaan barina ha lagu daro leeyahay galgaduud waa qabiil weey wax kale meesha yaala ma jira Soomaaliya marixaan asaguna degan meesha la caabudo ka tirsan asagana la iido oo cidaas ku cidahay macnaha federaal waxa weey anaga federaalka meesha la ku sameeyay in anaga la isku keenay diro la isku qaada baabiyo wadan Soomaaliya in hadda la kala qaybiyo oo sida Jerusalem ay noqoto dhinacna ay yuhuud ka degto dhinacna ay Falastiin ka degto taasi horta